waxa laga yaabaa walwal inuu kugu hayo cayilka ama caatada waxaan kula wadaagi doonaa qaacida lagu ogaado inaad caato tahay inaad cayilan tahay inaad dhexdhexaad tahay soo wasaaxibka shaahid bisani videogan waxaan kula wadaagi doonaa sida lagu ogaado inaad cayilan tahay ama inaad caato tahay ama inaad dhexdhexaad tahay ama in aad macluul u baqtinaysid ama inaad aad u buuran tahay badanaa waxaa dhacda qofku markuu caatada yahay isla markii Soomaalidu waxa ay ku qiimeysaa halkan ay ka fiirsaa labadan laf hadii ay banaanka yaalaan waxay ku dhahayaan waa caatowday ama indhahaagu hadii god galaan oo aad dhafar badan sameysay waxa laga yaabaa qofku inuu kiraado waa caatowday ama waxa laga yaabaa hadii inta cunno tira badan aad cuntid ama cunno qaldan aad cuntid dibra aad dareemaysid ama aad u dharagtid inaad niyadaada soo cayileysa ama waa cayishay marka waxa laga yaabaa kiliyahaaga in inta taabatid kadibna aad ka dareentid baruur iyo xoogaa hilib iyo kadibna aad istiraadid waa cayilan tahay marka aad miyaalada hor istaagtid qaacida waxa jirta marka inaad cayilan tahay inaad caato tahay lagu ogaado qaacidadaasi wax adag ma aha buugi qalin soo qaado waa inay fududahay hatta aad gurigaaga joogo ayaad ogaa kartaa waa hadii aad miisaankaaga iyo dharkaaga og tahay qaacidadan waxa la yiraahdaa BMI body mass index waa culeyskaaga oo loo qeybiyay dharkaaga oo laba jibaaray tusaale ahaan hadii aad 70 tahay hanixin 70 ma tihid waa tusaale ahaan ba soo qaatay meeqa ku qancaysaa oo aan ku dhahay 60 may 40 hadii aad culeyskaaga yareysid ama culeyskaaga hadaa badisid waxa ay ka jaran tahay xisaabta soo bixi doonto hadii aad culeyskaaga yareysid oo aad istiraadid culeyskaaga yarey si xisaab fiican ay kugu soo baxdo waxa laga yaabaa inaad noqotid qof macluul baqtinaya oo u baahan markaasi in nafaqo loo carro xitaa culeyska hadii aad kordhisid waad istiraadid qof culus iska dhigay waxa laga yaabaa cayil hada lahayn inaad yeelatid waxa tahay 72 71 ama 65 baa kor ku qoraysa waxa aad u qaybinaysaa dherarkaaga 1.8 1.7 inta uu yahay oo saxda ah baa laga rabaa waa laba jibaaraysa marka laba jibaarku waxa ay tahay dherarkaaga oo loo mar la isku dhuftay 1.7 hadaa tahay lagu dhuftay 1.7 xisaabta ku soo baxdo iyo xisaabtaadii oo kore oo ahayd inta aad adigu culeyskaaga uu yahay ba isku qaybinaysaa hadii culeyskaaga 70 ama 65 uu ahaa waxaad u qaybinaysaa xisaabta hoose ee labada mar isku dhufatay ee dharkaaga ahaa kadib xisaabta ku soo baxda ayuu yahay culeyskaaga sidoo ku ogaanaysaa marka inaad ciidan tahay iyo inaad tabeel ayaa jira tabeelaha sawirkiisa hadda ayaan ku tusayaa tabeelahani waxa uu qeexayaa qofku hadii uu ka hooseeyo xisaabta u soo baxday 18.5 hadii uu ka hooseeyo qofkaasi macluul ayuu baqtinaya waa in sida ugu dhaqsiyaha badan nafaqo loo ordaa wax nafaqo lana la siiyaa hadii qofku xisaabta u soo baxday 18.5 ilaa 24.5 ee u dhaxayso qofkaasi waa culeyska caadiga ah ee qof looga baahnaa laakiin hadii ay qofku soo baxdo 25 ilaa 29 waa qof cayilan waa in markaasi qofkaasi uu ku dadaalaa sidii uu culeyska caadiga ahaa ee u dhaxeeyay 18.5 ilaa 24 uu ku dadaalaa sidii uu soo gaari lahaa hadii xisaabta ku soo baxdo marka aad isku qaybisid culeyskaaga loo qaybiyay dharkaaga oo labada jibaaray numberka ku soo baxay hadii ay 30 kor u dhaafsan tahay waxaad u baahan tahay go'aan dhab ah inaad inta qaadatid caafimaadkaagana aad ka fikirtid sidaynu ognahay cunnada waxaynu ka helnaa energy si aan ugu shaqeyno si aan ugu fikirno iyo si waxyaabaha qaar aan ugu qabanno maanta waxa laga yaabaa cunno hadaa cuntid oo aad meel iska fadhisid 20% cunnadaas aan cuntay maskaxdaada ayaa isticmaalayso waxaynu isticmaalaysaa fikirka aad fikiraysid xitaa hadii aad jiiftid jirkaagu wuxuu isticmaalayaa energy cunnada aad cuntay hadaba cunnada aad cunaysid waa inaad ka fikirtaa waxa ay yihiin ha ku dadaalin inaad cunnada ka carartid hana ku dadaalin inaad ku carartid ee waxa aad ku dadaashaa wax markaasi naftaada muhiim u ah inaad cuntid hadii aad maanta 25 sano ka yar tahay da'daadu ay ka yar tahay waa marka laga raba inaad ka fikiraysid wax dhab ah inaad cuntid tusaale ahaan hadii 25 ka yar tahay aad ka cabinaysid timaha aad ka cabinaysid daal aad ka cabinaysid jir xanuun taamicneedu waxa ay tahay cunno kugu filan inaad cunin marka ugu wanaagsan ee qofku jirkiisa isbedelayo waa xilliga qaangaarka badana waxaad arkaysaa cunnada hadaa cunta energy ahaan kaliya aad ka cunaysid kaliya wax energy ku siinaya aad ku shaqeynaysid jirkaagu ma korayo jirkaagu sida rabtay ma noqonayo qalqal baana ku imaanaya hadii aad maanta 25 sano ka yar tahay cunnada aad cunaysid ha noqoto cunno nafaqo leh oo muhiim u ah naftaada hadii aad 25 ka weyn tahay oo maanta aad cayilan tahay ama caato tahay waxa laga rabaa go'aan dhab ah 25 marka ka yar tahay go'aan dhab ah laga ma rabo waa haba adiga sida dooratid iyo sida u fikiraysid iyo sida wax u ratid laakiin 25 marka ka weyn tahay 25 sano waa in go'aankaagu u ahaada mid adigu ku hagaya wixii go'aan aad ka qaadatid inaad joogtaysid
caafimaadka waa waxa ugu muhiimsan qofku ku noolaado. saddex xanuun baa jira: xanuun qalbigaaga ku dhaca, xanuun jirkaaga ku dhaca, iyo xanuun maskaxdaada ku dhaca. xanuunka jirkaaga ku dhaca waa ka buskoo kartaa daqiiqad, waxay u baahan tahay keliya inaad waqti isa siisid. xanuunka qalbigaaga ku dhacana sidoo kale waa ka buskoo kartaa oo waxay u baahan tahay waqti iyo dulqaad. laakiin xanuunka maskaxda hadduu kaaga dhaco way adag tahay sida uga badbaadid. xitaa dadka dunida ugu jecel haddii ay kula joogaan 2 maalin 3 maalin, maalinta afraad ama maalinta shanaad waxay ku dadaalayaan inay meel iskaga ka xiraan. maanta noloshu waxay ay ku xiran tahay waa naftaada. wayna ka fikirtaa waxa qabanaysid, wayna ka fikirtaa waxa sameynaysid, wayna ka fikirtaa waxa aad ku dhaqmaysid iyo sida aad u dhaqmaysid si aad caafimaad ugu noolaatid. hala noolaanin dhibaato aad gacantaada ku sababtay. waxa aad ka fikiraysid waa inaad ka fiirsataa, waxa aad daawanaysid waa inaad ka fiirsataa, waxa aad qabanaysidna waa inaad si degan u qabataa. badanaa cunada markaad cunaysid ha ku cunin adoo filim daawanaya ama video daawanaya, waayo maskaxdu laba shaqo iskuma qaban karto. waa inaad ku raaxaysan kartaa cunada aad cunaysid si degan, si ilkahaagu u burburiyaan, kadibna jirkaagu si fudud ay u gasho. cunada aad cunaysina ha noqoto mid dheelitiran. waa saaxiibka Shaahid Bisani, videogan aad ka heshay asxaabtaada la wadaag. haddii aad fikir haysid commentiga waad ugu wadaagi kartaa. meel walba dunida ka joogta Allah kugu xifdiyo. haddii aad ugu cusub tahay subscribe-ka ha iga xasdin, video kale aan soo duubay waad daawan kartaa. Assalaamu calaykum.